runtii waxaa jiray muddo hadda bil iyo adigu maaqan 40 casho ka hor maaqan madaxweynaha si toosan ula kulmay xafiiskiisa ula kulmay xisbiyada kula kulmay anigu goobjoog aan markaydahay mas'uuliyiintii xisbiyada markaa joogtaan kamid ahaa dhowr iyo 30 xisbi 730 xisbi 30 xisbi ayaan ahaanay waqti dheer aan qaadanay 5 hours 5 saacadoodan madaxweynaha soo fadhinay oo wax kale aan looga hadlaynin wax laga hadlay ay ahayd kaliya ma dhici dawladda ma ka go'an tahay dawladdaada in ay noqoto doorashada soo socota mid la hubo inay dhacayso kow oo ku dhacayso nidaam transparency laba ama daafurnaan ah iyo in mataqaana hadii la ku rooyay qof iyo codkiisa ay noqonayso su'aalihii la weydiinay madaxweynaha kamid ahaa madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday oo anaga hortaan ku ballan qaaday doorashada waqtigeeda inay ku dhacayso wuxuu yiri one day ku dari mayno mandate loo qabtay markii la gaaro way naga go'an tahay boqolkiiba boqol way naga go'an tahay in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo waa ballanqaadkii madaxweynaha anaga horteena ka ballan qaaday waxa kaloo nagu dhiirigeliyay inaan kala shaqeyno si ay taas u dhacdo haddaan xisbiyada inaan kala shaqeyno ayuu naga codsaday annagana waa ka aqbalnay inaan ku wada shaqeyno si nidaamkaas geedi socodka nabadda iyo horumarinta mustaqbalka keenaya in lagu wada shaqeeyo marka annaga dhinaca kale hadda markaan fiirino wax hadda dhaliil ah oo ballaaran oo soo gudbin karna ma jirto laakiin waxaa kaliya noo muuqda nidaamka doorashada uu noqonayo ee ah horeeya uu qaaday inuu yahay kan kaliya ee caqabada ku noqon doono dawladdana caqabad ku noqon doono shacabka Soomaaliyeed caqabad ku noqon doono the only kan kaliya af Soomaaliga kan kaliya nidaamka doorashada uu ku hagaagsanaan karo dawladdan aan caqabad ku noqon doonin si uu dhacona ay suurtagal noqonayso annaga aan ku kalsoon hadaan xisbiyada inuu yahay nidaamka leeyahay PR ama nidaamka leeyahay proportional representation waana rajaynaynaa inuu madaxweynaha aad uga fiirsado maanta uu horta la warqadii uu saxiix lahaa inuusan saxiixin mataqaana nidaamkaas loo gudbiyay oo dib u eegis uu ku sameeyo oo guddi mar labaad u magacaabo oo arrintan dib loogu noqdo si aan loogu fashilmin billahi karim